boqol sano midkii jiray wuxuu aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso raxmatullaahi wabarakaatu asxaabta meel baydin dunida ka joogtaan fiidnimo wanaagsan maalinimo wanaagsan xil waliba iyo waqti waliba weydiinta ay kula soo wada barnaamijkeeni arrimaha kriptada aan ku faraqan jirnay xoraanteeda suuqa waxa la isla dhaxmaray jawiyadeeda kala duwan iyo inaanu dib u milaasana bal xaalka 48 saac aanu kala maqneen bal maxaa isbedelay jawiguna waa sidee waxyaabaha ugu waaweyn barnaamijkeena dhinaca dunida kripto aanu ku soo qaadanaynaa dhinaca xoraanta markay noqoto waxaanu dareemi karaynaa in lacagta guud ee suuqa ku jirta uu hoos u soo dhacay 2.3% uu suuqu down yahay down ahaanta ama hoos u socoshada suuqa waxaanu ka dareemi karnaa lacagtii ku jirta suuqa oo 827 bilyan dollarka Mareykanka timid darbigii 30 xitaa kasii hoos martay mar kale laakiin iyadoo sidaas ay tahay bitcoin waxa uu ceshanayaa 16,400 dollarka Mareykanka area la dhihi karayo areada 15 ilaa 16 waxaanu dareemi karaynaa ilaa 17 afkeeda hore ama 17,200 in darbi waxaan ay u noqonayso suuqa laakiin waxaa soo dhan waxaa kasii wanaagsan bal inaanu dib u fiirino xoraanta ama xaaladaha kala duwan ee dhinaca akhbaaraadka waxyaabaha ugu muhiimsan ee suuqa ciladihiisu ay ka jiraan ama aan ka ogaan karayna bal bulshada kripto waxa aanu 24 saac la soo dhaafay naga dhaafay qaybteena asxaabta dhinaca dunida kripto ku xiran darbiga 10,000 waa noo muuqdaa noo gaarsiiya youtube-ka inuu darbiga 10,000 aan wada dabaaldegno badhanka halkaan uu ku yaalaa asxaabtaada waa la wadaagi kartaa aragtidaada qaybta hoosena waa noogu reebi karaysaa 100 xabo oo bitcoin oo exchange-gii reer Canada ninkii Hindiya $100 geerida ku soo qortay ee Quatrico CX ayaa lagu soo waramayaa inay dhaqaaqday 100 xabo ee bitcoin-ka ahna loo diray dad 2019 horay exchange-ga lacagtan ugu diray arrintan ayaana cilad dhinaca heedaha sharciyada wadanka Canada ka keenayso exchange-ga weyn ee Binance qaybteeda Binance US ninka madaxda ka ah ayaa waxa uu taagay Ziziba oo isaguna kamid weyn exchange-ga Binance madax ka ah in asxaabta reer Mareykan xoolaha ka yaala exchange-ga Binance.US waxooda ay xor u yihiin inay qaadan karaan exchange-ga Binance.US na ay u wada hayso hal iyo hal wax u dhigma oo qof walba coin-kii iyo wixii meesha uu dhigtay uu qaadan karo hanti ka tira badan ayaanu haysanaa ayay taagan yihiin Binance.US waxa aad reer America nagu tuhmaysaan waxaana socota gadashadii ay Binance.US ay la wareegaysay kamaliga Voyager oo 1.2 bilyan dollarka Mareykanka ay kula wareegaysay oo hay-aduhu hawsheeda ay socoto macaamiishii reer Voyager ayayna taagan yihiin intaana gaarin bisha 3 2023 lacagtiina inaga ayaa idin siinayna ee Voyager waxba faraqaha ku dhagananina Binance.US soo doonta kambanigii Visa oo doonaya in system automatic payment uu ku sameeyo kambanigiisan Visa kaarka abkiisa iyo Ethereum blockchain-ka laakiin community-ga reer kripto waxay taagan yihiin lacag automatic iska baxaysa dhibaato waa waladyada dadka ay xukumaan private key-ga kontraada saxiixa ama qofku waa inuu san gareeyo oo waxaan ana diraayo laakiin systemkan Visa automatic payment-igi smart contract bal xaalkeedu sidee buu yahay bulshadu say uga falcelisanay waanu fiirinayna dokumentiga ay daabaceen kambaniga Visa oo ay ku soo bandhigayaan qaabka arrintan u hirgeli kartana waan idin la wadaagi doonaa 10.7 bilyan dollarka Mareykanka lacag u dhiganta ayay Great Scale waxay taageeyeen haddii dowladda Mareykanku suuqii exchange oo ETF-ka looran jiray ay noo diidaan inay noo ansixiyaan waxay noqon karaysaa midaan suuqa keeno xoogaa bitcoin mar kale darbiga 15,000 u sii celin karaysa inay noqon karto laga filan karo like subscribe share adiga bani markaa gadna annagana wax badan ay naga saacidi karaysaa asxaabtiinana waa la wadaagi karaysaan
barnaamijka intaas ayaan jeclahay bal inaanu ku falanqeyno isla markaana aanu isla qaadan dhigno si aanu u wada fahno xaalku isagoo sidaas yahay ayaa haddana baaritaano soo baxaya waxa ay sheegayaan in marka warka xun dhibta iyo waa la kala cararay iyo waa la kala guuray iyo baaba iyo walwalku uu soo kordha dhinaca dhaqaalaha markay noqoto gaar ahaan dunideenan reer cripto waxaanu dareynaa suuqu inuu joogo goobihiisii ugu hooseeyo dadka laga qaadi la-ya coinanka inay iska xaraashaan waana xilliga loo diyaar garoomo abaabulka qaybta hoose jaanisyada doonta in percentage macquula aad dib uga bilowdo inaad tiraahdo ariiro haddaan kooy ama hadaayo hadda leeba imaaday marka hadday bilaaw tahayo aruursigu imika u badan karaya taasoo jirto bal haddaanu kasoo tagna arrintaas iyo xaaladaheeda exchange-ga Binance reer America warbaahintoodii iyo guruubyadoodii kala duwanaa iyagoo kastoo ayaganaba aysan janno haynin haddana waxaanu dareemi karaynaa dagaalkoodii inuu sii cuslaaday buuqiina uu sii batay ayaguna meel kaleba ay u caddahay ninka zizi exchange-ga Binance waxa uu taagan yahay qaybta reer US idinka US ayaad la xiriiri karaysaan oo holihiina idinka ayay idin taallaa bal maadaama exchange-ga Binance qaybta xafiiskeeda Mareykanka ee Binance.us ay audit tahay ama la soo xaqiijiya lacagta taalla iyo bal sida wax loo trade gareeyo margin trading iyo margin call iyo derivative-na aysan lahayn .us Binance waxay u saamixi karaysaa haddiiba exchange-gu aysan margin aysan lahayn suuqa in hantida dadku ay nabad gasho ay xawaaraha darajada la tilmaami karo waa aamin ay sarreyso oo halkii dollar ay dhigato haddaysan exchange-guba suuq margin ka jirin uu damac weyn ka geli kari biniaadamka maadaama damac lagu dul dhisay oo iyagu naftigooda iska leeyihiin lacagta meeshaan iska bataala ninkaan waxaa waa magaaladu iska aadaahe ma iska sii isticmaalno margin kusii galno marse suuqiba hadduusan meesha margin lahayn taadi la u tegay marka wixii tagi war anaga reer margin ma nihin ftx.us waxaa margin waxbaa ku dhex lifaaqnaay haddaa is leedihi sidoodayo kala waaye asxaabay lacagtiini waa idiin haynaa halto hal ayadoo ah malaayiin lacagtiina ka tira badanna waanu haysanaa maxaa ku xaqiijinaysiin waa marka malaayiin ka tira badan kaashkii dadkii Binance.us ay ka cabsanayeen inaad ka farowgaraysaan iska dhaafee sheekadana sheeganaysiin xaggee ka timid 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ay company-ga Viaje ku bid garaynayaan ama ay ku doonaysaa Binance.us in company-gaas ay ku gadato nidaamka Voyager frozenka dadka ay ka dhigtay bishii June ilaa iyo iminka dadku aysan lacagta la bixi karin ee macaamiishoodii ayaga isku haystaan ayaa maxkamaddu dhinaca bankruptcy-ga ama xareyntii inay company-gu uu kacay waxaa ka jira su'aalooyin fara badan waxaana lagu soo waramayaa in iminka maxkamaddu ay ogolaanayso rajo in exchange-ga Binance.us ay gadato oo lacagtan 1.2 bilyan ay bixiso reer Binance.us-na ay taagan yihiin maxkamaddu hadda waxay idin soo ogolaanaysaa rajo ah in bisha saddexaad ama eriyada March 2023 Mars eriyadeeda aydan awoodi karaysaan in aad lacagihiini Voyager idinkaga xanibnaay ee dhinaca bankruptcy-ga xanibaada ku haysay inta process-ku sii socdoone aan anagu idin sii siin karayno oodba qaadan karaysaan mana idinkaga soo qaadayno lacagta macaamiisheeni ee qaybta markay noqoto Binance.us reer Binance.us wixiina hadarba ayada dhanba wada qaata anaga waxa waaye xoolo kala meel kala noo xaniban ay taagan yihiin oo noo yaala marka waxaan dareemi karaynaa sheekadu inay tahay sheeko jawyo kala maadaama ftx.us hadda ka hor isku dayday Voyager inay tiraahdo waxbaan ka qaadanaa laakiin haddana hay'adii ama ftx.us waxa waaye waxay noqoto mid faqrinimada xareysato kadibna zam waan maqlayno wararka naga soo gaarayay inuu ogolaaday in Bahamas laga soo qaado oo wadanka Mareykanka kiiskiisa dacwadii maxkamadda kiiskiisa dhanbo ee Mareykanka loo soo rogo arki doonaa haddii Mareykanka loo soo rogo waa asxaabtu maalgashada u joogto marka dhibaato weyn ka qaadima reer Bahamas afadlisdii ilaa ordhibka bay ka xidhaan uradaga ayaga naftigooda waxa lagu soo waramaa Bahamas in company-ga Alameda Alan Quando company la yiraahdo kale
oo uu wadanka Bahamas ka dhisan oo ay maalgeliyeen oo lacag ku bixiyeen marka xogaa waa isjiid badan ay leedahay markay noqotay FTX buuqeeda rutiradii ayuu ka batay oo godad fara badan iyo boholo fara badan ayaa u qodan oo waxa waaye meesha qodobba waxba uga soo baxay marka ayaga xaalkoodu waa sidaas marka waxaan dareemi karaynaa buuqan waxaa sii cusleeyay hadalkii ama waraysigii Zizi uu siiyey TV-ga wadanka Mareykanka laga leeyahay ee isaguna ahaa kambaniyadayda ama kambaniyada crypto kambani dhammaystiran oo dunidan jooga oo audit ku samayn kara ama soo xaqiijin kara balance sheet-kooda lacagtay hayaan lacagta macaamiisha siday kala tahay iyo kala sarreynteeda iyo waxyaabahaas oo dhanbo way adag tahay ama ma jira miya wax saas camal ah ayuu ku dhawaaqay wuxuu yiri crypto inaad audit garayso waa adag tahay laga yaabee in arrintu aysan sidaasi ahayn oo aysan adkeyn haddii xaqiiqdii laysula tago qalinka iyo warqadda waxa waaye xisaabtu waa meesheedii ku caddahay haddaan jawga bilowgahooda hoose laga soo qaldin taas marka waxay ayagu naftigoodu reserve audit wax ah ay soo bandhigeen oo dhinaca reserveka markay noqoto lacagta ay haystaan ay soo bandhigeen inkastoo qolo walba oo coin ay leedahay samaysatay mar walba ay adag tahay ka daba tageeda maadaama malaayiin coinka ay lahaayeen ay qaybta dambe xisaabta kasoo gelayso haddana ay ka mid tahay balbuuq waxyaabaha ugu weyn ay kicinaya laakiin inkastoo Binance coinka ahaantiisa uu istaagay oo haddana aan la dhihi karaynin waa platform oo smart contract ama token inkastoo qaybna token uu ka yahay ayaga naftigoodu way kala qaadqaadeen oo laba blockchain iyo howlo kala duwan oo ay kala dhidhiseen oo laba jiho ayay u kala qaadqaadaan haddaan arrintaas kasoo tago waxaan dareemi karaynaa marka Binance.US inay taagan tahay annaga Voyager waa gadanaynaa 1.2 bilyan oo dollarka Mareykanka idinka lacagtiina waa idiin ogolnahay margin trading iyo waxna platformkeena male sida FTX Binance ay ahaa jirta FTX.US oo kale oo qaybaha dambe FTX ta weyn ay iskala xiriireen oo albaabkaas uu ka furay marka idinka idinta Allah marka xolihiina diyaar waay wadaadkii dhintay $100 wadaadna ma ahayn widaayo xariifkii dhintay reer Canada Rodrigo CX boqol xabo oo bitcoin exchange ee laga lahayo wadanka Canada ay ahayd sheekadeeduna waa sheeko iska cajiiba 2019 score ay dhigtay oo Hawaii widay computer laptop exchange ku haysan jiray subaxii dambe wuxuu tagay Hindiya hadda idinka daba geeyay asxaabta nagu cusub markuu Hindiya tagay wuxuu dhahay exchange-gii waa dintay oo aligaha kingareeyay ayuu ku bilaabatay sheekada kadibna waxa soo baxday Hindiya inuu tago oo soo dhajiyay waaye magaalo hebel cusbitaal hebel aan ku dhintay marka idinkeedii talwarqadeedii dhimashada waa taas dowladda Canada oo soo dhiibo ehelkayga ahaa oo warqadii dhimashada marka dowladda Canada waxa soo diiday waa la iska daba tagay waa la iska daba qayliyay waa la yiri macquul maaha odayga marka lacag adiga xilligaas u dhigantay dollar ahaan markay noqoto oo adiga dollar oo bitcoin ayaa ku maqan 104 xabo ilaa iyo 150 xabo ah 104 xabo aad waardiyo looga ahay 100 xabo oo kamid ah bitcoin kaas markii formka la xareynaya faqrinimada lagu qoray oo diiwaanka ugu jirtay hay'adaha kala duwan ee dhinaca markay noqoto sharciyada wadanka Canada oo xilligaas u dhigantay 355 kun oo dollarka Mareykanka ama 470 kun oo Canadian dollar ah inkastoo lacagta maanta ay tahay lacag aad u fara badan xaqiiqtii oo ay gaari karayso 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka maanta waagaas waxa waaye 2019 ahayd marka widaygan waxa la dhahaa marka coinankii ayaa maanta dhaqaaqay ha dhaqaaqaane 104 xabo ee bitcoin-ka ahayd 2019 adressadii ay ka imaadeen oo 4 adressa mid walba intii uu soo diray hadana dib loogu diray laakiin adressadaas xarfaanimadooda iyagana waa qaadeen waxay dhaxmarsiiyeen Wasabi wallet waa wallet dadkuna waa soo degsan kartaa mobile wallet ay leedahay light wallet la dhahaa qaybteeda dhinaca applicationada aad ka soo degsan karaysid oo mobilekaada ku soo degsan karto waa bitcoin wallet waxaad samayn kartaa waxay leedahay maado la yiraahdo mixing oo ah waxa aad ku soo shubto qayb kale ayaa jirto ay leedahay oo loo diro oo isku walaaqaysa waxa isku walaaqay addresskaad ka soo dirtay haddii waardiye laga hayo la daba taagnaay qoladii ku daba taagnayd marka gudahan soo gasho ina baxda hadhow ma keeni karayaan oo waxa baxayo kumanaan bixitaan ayaa meesha ka soo dhaqaaqaya
tii aad ahaydna way adagtahay in laga soo saaro marka mixing ayaa la dhahaa ama mixering ama isku qas collection camal waaye adi mixing waaye Soomaaliga isku qasid isku labqas waaye camalena isku cajiimid waxa isku cajiime jidkaad ka timid raatirasho gabagabadii kaasa ka fudud raatirasho sameynaa oo waxa waaye waxaad ku raatirana wasabi inaad soo gashay laakiin inaad baxday batata lagu ma soo saari karo hay'adaha sharciyada oo ay ka barigaan dhowray Canada iyo kuwa kale aad u fara badan waxay taageen arinta waa baarayna waad maasantii community reer crypto waxaad nolol soo socodsiiseen ninkii awalba maalintii koowaad soo bilaabay geerida $100 ku soo bixiyo oo waa dhintay haddana keenay adereesidii afarta xabbe awalba waa tola coinan kana iyagu way dhaheen markii hay'adaha sharciyadu ay qabanayeen arintan waxay dhaheen anaga 140 xabbo ee coinanka ee bitcoin-ka ma maamulno dadka lagu tuhmaayo dhan inay maamulaan waxa la dhahay wax ay kala socdaan male laakiin nin dhintay warqadiisa horta bal soo xadeeyo waxa la yiri waa dhooliyaha oo beer ahayd wixii uu ka soo qortay reer Hindiya tii labaadna waxay noqotay afarta darees oo 2019 u dirsatay meesha bitcoin-ka walletkiisa ninka lagu tuhmayay ayaa haddana dadku u soo celisay asxaabtii miya reer Canada anaga ma nugu ciyaaray idinka maxaa ka wadi wadayaalo reer Canada meeshan blockchain alda wardiya laga wadayahay qof walba wardiyo ka yahay hadaa wax dhaqaajiso adoo baxar walletkaada ku jirto la daba taagnay 10 sano Allah ka soo dhigay koole ku dhahay waraabato wallet hebel dhaqaaqday suuqa cilada ku tihiin dadkan waxay leeyihiin waraatuug baad waa dhaqaaqay meeshan waxay ku fiicantaa waxta hada hay'adaha sharciyada wadanka Canada oo dhan oo dhinaca arrimaha dhaqaalaha ay bulshada crypto ugu mahad celinaa waxa kamid ahayd cajiibka waxa aysan iyagoo on la socon loo sheego la yiri war wixii waa dhaqaaqay waa ku war arag addressidii wixii dhan iyo blockchain explorer-kii wixii dhan loo diro la yiri waxa walba time stamp kan leeyahay saacadan iyo waqtigan iyo second kan dhaqaaqeen marka maxaa shaqadiina ay waxay qadin ma bangi wireless u dirayo wardiyay ka noqdaan qaybta dambe istaaga PS ka qaybtooda dambe oo la dhaxlo laakiin waraaniyo tan ayaa naga fiican yaa meesha ku haydo luuqa waxa waaye afar qof ay soo gad laakiin tan wixii dhaqaaqay wixii soo galay mobilaayi qof dunida ku kala dhool isla isku dareen isku aqli isku diin madhab iyo aragti baa hayn waa ku dadaalnaa hadaan in wax ka qabano laakiin way adagtahay masaari in laga soo dhax saaro natiijada ay tahay wasabi aan laho wallet kan la yiraahdo ama WASAP wasabi yes wasabi wallet waana proven kartaan oo wallet fiican ammaankeeda aad u sareeya laakiin waa hadii luqaasi meelaha saad marmarayso haddaan ka soo tago Visa company-gan Visa ee kaararka plastiga bixiya systemka payment-ga ee dhinaca dunidane hormuudka ka ah dhinaca waxay sadhaafsiga bini'aadamka transaction-diisa xawaarihiisu aadka u sareeyo halbeega koowaad ee crypto qolada ay rabto inay jabiso ama ay gaartana waa ayaka masarkaarku waa uu ka hooseeyaa xawaarahaani inta uu maalintii sameeyo inta Visa uu sameeyo xitaa aad labada machine soo agdhigato wayna kala qaalisan yihiin wayna clearance-ga ama kala dhaqaajinta xawaaraha Visa ayaa sareeya kana yar raqiisan ayaan u malaynaa laakiin la socdo haddaan ka soo tagay company weyn waayo wadanka Mareykanka laga leeyahay system waxa uu soo wadaa auto payment la yiraahdo si automatic inaad Ethereum-kaaga wallet-kaad ku haysato waxaan wallet al dhisaa Ethereum company Visa application ku dul dhisanaa wallet-kaas application-aas waxay ku kalifayaan wallet-kaas Visa ay samaysay inaad Ethereum keensan karto dukaanka kaarka Visa haysato wallet-kaada iyo kaarka iyo isku xirnaanayaan wallet-kaada mobile-ka ah iyo kaarka Visa oo waa dollar payment-kiisa ah ka bacdina adoo Ethereum haysta adoo lacagta sarifin aad dukaanka tagay waxa waa cabitaankaada kafeegaada shidaalkaada yaanyadaada wax la marsanay kaarka Ethereum-kaada wallet-ka ku jirtay ka go'ay lacagta automatic payment ay ku baxaysaa tan marka buuqa ka imaanayo inkastoo ayaga warqad ay daabaceen aad u dheer oo ay community-ga reer Ethereum la wadaagayaan smart contract way mixing smart contract waxbay sheegayaan laakiin warqada qaabka farsamahaan waxaan ay u dhacayaan iyo bulshada la wadaagay laakiin gabagabada waxay noqotay waa smart contract wallet-kaada asxaabay xogta meeshan ku jirta waxay tahay adiga wallet-kaaga marka aad wax dirayso private keyga aad wallet-kaas ku samaysatay ayaa qaybta dambe ka saxiixda oo tiraada
hebel aan ahay iyadu maadaama ay kusan ku aqoon jaamac aysan ku aqoon laakiin walletku waxay taqaanaa hadday wax ka baxayaan private keygaas inuu yiraahdo waa ogolaa waxaan inay baxaan oo transaction ay sidaas ku baahdo oo ka macnaa ogolaanshahaadii ayay waxaan ku baxeen oo private keyga uu maamulo smart contract markay timaado community-ga reer crypto way yaqaaniin oo dhibaata ka jirta xaqiiqdii markay noqoto walletyada shakhsiyaadka ama mobilada ama computerada ama applicationada kala duwan ku kala jirtaba waxay tahay waxaa jiro smart contract haddaad furaha aad haysato ee walletkaada u dhiibto smart contract waa code la soo qoray ayaga ganda kamariga bis waxay leeyihiin code-ka wixii loo sheegay oo bis uu sameynaa marka anaga maxaana reer crypto maxaa naga rabtay markaas waxaa la taageeyahay reer crypto code-ka wixii loo sheegay sameynaa smart contract wayso ka soo daaleeno walletyadoodii hore smart contract conform dheh in loo dhahay baa coin-kii walletkooda ku jiro dhabooro loo qaadan jiray waana waxa dhalinyarada fara badan ay koorarkooda dhinaca telegramka xitaa aan ku dhahno haddaa aragto coin aadan aqoon ama lacag aadan aqoon ku timid smart contract ka imaanaysa ha isku taabanin sababtoo waxaa macquul inaad tirahdo wax uun conform kadibna wixii walletkaada ku jiro dhan ay qaato malicious ama waxaa imaan karo qaybta dambe in walletku ay samayso in private keygaada wax hadaya aad okay dhahday oo ay ku dhahayd waraa private keygaada iyo dhiibsi waxaan aan ku tusay aad u hesho laakiin amarkaas waxaan aan ku tusay oo waxaad heshay $100 ama laba xabo Ethereum tusaale 10 xabo kugu taalo walletkaaga waardiya ka ahayd waxaa lagu yiri waxaad heshay 3 xabo Ethereum aan kuu soo diray laakiin okay dheh si kugu timaado okay dana taabanaysid waxaa qaybta dambe loo sheegay oo la yiri furahaaga si aan ku tuso furaha aad ku haysatay 10 xabo Ethereum ka ahay si aan ku tuso 3 xabo Ethereum ka aniga aan ku soo diray hayaa dhahday 10 xabo hor laga qaad 3 xabana bugay baa ahayd oo waxaan malicious u ahayd marka odahebel waxa jirna lagu tusay waxna waa laga qaata runa marka waxay dhan community reer crypto sheekadan biadaal waa visa soo daaliseen anaga automatic payment smart contract oo visa horta dadka marnaa inuu xitaagay marka waxaan sameeynaa prepay waxaan maadaama hadda qaabka uu kaararkooda qayb ka mid ah u shaqeeyaan oo Ethereum meel ku xir ku loo garay ka bacdina meeshaas aad ku loo garaysay anaga wardiye ka ahaan smart contractkaas ana jabjab waxa soo bixinayso automatic payment-ga waa mechanism ay adag tahay in guulo way ka imaanayaan haddii lagu dadaalo biniaadamku dhinacyo fara badan farsamo ahaan iyo code ahaan sida u shaqeynayso la isla fiiriyo la isla fahmo laakiin hadda qaabkay u soo bandhigeen community reer crypto hadhoy waxa ka qaldatay oo waaye shitcoin smart contract-yada walletyada trust wallet MetaMask wax coin kale isugu soo diraan ka daalna marka malicious code waa waxa ka dhigana kamani weyn nawaatiin marka ay tahay waa isku noqonayna idin kala soo fiiriyo reer community xaalka halkaas oo ka mara 10.7 billion oo dollarka Mareykanka ay grade scale community reer crypto ugu booteenaysa inay xaraashayso haddii dowladda Mareykanku ay suuqa ETF-ka u ogolaan weyso waxaan dareemi karaynaa grade scale كمبري قال لي هذا كمبني تجارة كجدا بيتكوين قاب وحو جدا عجيبة حقيقي أو حد هدات هذا كومبليكيد نوايا شرعيا مركين نقطة رن مركين نقطة أيضا نفتي جد وسي أدقي هاي سوق أو حواي فهم كيس حقيقي هذا وهذا الربا هرت نحو العقمنت نحو ريجي سماشة ميكانيزم كل زي ما فرصة ماذا وكل زي سوقه عندنا مكان حتى بيتكوين كسوق يلا اللي هي طبعا كون haddii boqolkiiba 50 qiimaha suuqa maanta uu ka joogo boqolkiiba 50 ka hoose ayaga uga gadan kartaa bitcoin waa dareemi kartaa marka bitcoin 16 boqolkiiba 50 waa beerta loo diray waxaa dareemaysaa marka 8,000 ina bitcoin ka siinaysa ayaga laakiin saas uma dhisno qaab kale wax wala qeyra jira marka waxay isugu ceshadaan percentage-ka suuqooda hadda bitcoin-ka boqolkiiba 50 ayuu down yahay gabadii suuqa bitcoin kan wuxuu ka joogaa 16,400 waxaan dareemi karaynaa marka asxaabtan bitcoin inta badan Coinbase hayso toddobaadii aanu soo dhaafno waatay soo bandhigay markii la grade scale idinka naftigiina ma beerta ku jirtiin waxaana leedin bitcoin haynaa beenta warqada la wareejinaysiin maadaama contract ay taa waxaan
la kala gato waxay dhan marka ETF ahaan ka dhigayna waxaan ka dhigaynaa Bitcoin runa ayaan hadhow idiin soo wareejinaynaa marka suuqa in ETF wadanka Mareykanka ayuu company-gu ka sharci gareysan yahay laga ansixiyo way yara adag tahay grades saktiga iyo heedan sharciyada Mareykankuna weli sheekaas waxa waaye seeta dheereys iyo adi laba shay ah meesha ka socoto ah u seeta dheereynta suuqa iyo xaaladiisa oo dad fara badan weli tujaar ay taagay heedan sharciyada laga dhaafay sidii barnaamijka ka wadno waa adkaanayaan ugu adkaynayna camal iyo odayaal kale oo taagan waxaan xaqirannimo yahay waxaan wax shaqeynaa marka laba group ee heedan sharciyadu salka ku yaraahayaan oo ay labaduba kala qancinayaan inay yimaadiin oo sharci nadiif ay ka sameeyaan way ku yara adag tahay oo ay ka sameeyaan sharci nadiif ah akhyaar fara badan oo xaqooda jirtay way ka soo baxayaan marka doomaa la kala ilaalina waxa waaye kala ilaashana doorada maruusa marka asxaab doorar ma la kala ilaali karo marka taajiriintu waxay taageen anaga meel kale ka soo mareynaa grades kale marka hadda waxay taagan tahay 10.7 bilyan saktiga idin sheegayna waa xaraashayna waxa suuqan hadda xaaladiisa iska xuntahay oo dadka oo dhan cabsi ay ku jirto walwalkii FTX taajiriintii oo dhan ay garaafaysay iyo kamriyaad u fara badan heedaha sharciyada iyada naftigeedu dabada kula jirta suuqeeda derivative-ka markay noqoto oo waalida dhan bilaabay maadaama leasingka ugu weyn FTX ay soo bandhigaysay oo FDI kamrigan dhinaca markay noqoto waxyaabahan tira oo exchange trading-ka ah oo lacag ahaanta wadanka Mareykanka laga soo ansixiyo si ay adi waxba isugu aadisa dhowr paragraph wax aan sharcina ay ka soo qaadatay kabacdi ay noqotay hawsha ku gasho FTX ay ku kala kacdo FTX ana ka diiwaan gashana waxana waa diiwaan gashay waxana ma diiwaan gashana marka FTX hadda waxay taagtay warka ayaga laba paragraph lagu qalday waxaan ma naqaanay credit scale ETF shakal iraaho dhanbo saktiga horta waxay taagtay waxaan horta in la soo kala saaraa horta koreyso waxa security tokenada iyo maxaa la yiraahdaa waxa hantida ama assetka ama waxa maal waxa Bitcoin Ethereum u taqaana Ethereum buuqa ka taagan waa Ripple iyo group ku dhagan way taagay idinka Ethereum smart contract oo ay si wahan lagu soo issue garay Belgiumka waa ogashiina anaga beertan oo diraysin ma Swiss kan iraado marka idinka maxay ku dhacay kabir America waa xaqiraysin kabiriga reer European marka ciyaarka xaq lacagta lagu kala qaadanayo okay waa waxba farq isku dhagan marka hatta oo is urinooya reer Europe iyo waxa is urinayo reer America oo taajiriinta Amerikaanka inkastoo hatta sheekadu iska dhowdaadana waagi Ethereum la asaasay nimanka waxay imaadeen Switzerland markaas laga abaabulo hawshiisa iyo hantiisa loo qabtay oo Vitalik iyo Kerry Wood ninkan Balkadon iyo Charles Hoskinson saddexdan nin iyo asxaab kale aad fara badan oo Adam Levine iyo maalinkii dhinaca oo kale iyo gurbiyaad fara badan markii isku soo aruuray waagaas community-gu waa iska fiicnaa smart contract-gan iyo Ethereum-ku aad loo daneynayay mashiinkan wixii xagga lagu dhisay kabacdi hadana waa la kala tagay waxa canuga Canadians waa baxay kan American waa baxay waa la kala sikada ko Germany oo Jarmalkiisi waxba la kala aadaaday kabacdi hadana kuwaan labadan nin markay noqoto groupkan balkadood iska sameysteen markay fahmeen waa Ethereum iyo qaabku scale ku sameeyay groupkii Cardano Charles Hoskinson iyo ayagana coinkii Cardano iska sameysteen oo Japan oo hadana markala ka dhaco odagaas iyo groupkiisi ay wateen luqadaas kale la yiraahdo soo bilaabo adag oo luqad military dhinaca coding-ka هذه الشيء كذا ويك حاجة شرعية دي وحكابسنا موقع كأنه nooga dheeraanayo laakiin عدريم كنا الناس حاوي جريس كان حاجة هو نو بوتين وسا حتاجة سكتة أبوه حكير أبوه حراشنا بركة دي حراشنا هذه دربي شان التوان يكون يحصل دوانينا و8 بليون واحد بدن أو هذا وين معها أو هذا مقال كان يقدم بي وحاكم بحد السوق يعني حاجة 2 بليون يعني بلاش كده هو حنو مريني 720 730 iyo dhowr bilyan oo dollarka Mareykanka haddana waxaan u maraynaa 727 bilyan oo dollarka Mareykanka marka waxaan dareemi karaynaa wadaasha deeraan xataa carab bixina waxa ayaga hadda qasaaro qabo oo 50% suuqoodu down yahay grade scale Bitcoin la eegana duliira laakiin taajiriinta warka ku xumeynayaan waxay taagan yihiin waxa waay dadkii kontraadadii hore galay oo suuqooda weli down ka yahay ay ku adkeynayaan waxay leeyihiin idinka heedaan la hadla telefoonada dira ma wax dira wala la bilaaba أنا قصة صحية باش أنا أكلك عادي دي كنا فايدين أنا فايدين أنت أصبنا مش هاي ما داني حفر بدنا قايب تدم كجو حياة أصار كده أنا وحكي عصبنا هذا لايك سبسكرايب شير عادي برمك عقدنا مقالك عاوة كل شيء كسنة يقرأ النقطة إن شاء الله وكده ده له إنه صار نقل
joogana waxaan dareemi karaynaa xogaha in madaxa suuqu soo qaaday refresh aan dhahay 1 bilyan ay nagu soo korortay oo 827 bilyan oo doolarka Mareykanka aanu marayno bitcoin $10 isbedelay waa stable coin oo ka noqonaya marka suuqa briyaha oo kale boqol sano midkii jiray wuxuu aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballan